السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان وناكسن بها نجا قبله عملك وناكسن هي ضاعدة حنا نوكال ميو إن سي رباه عن عابدو وحا أدي سوجيتي قصة عن روا إن لو ذاقو أو عوان كيدو يهي وجهاga itus si aan kugu garto marka aan jannada galo sheekadan waxaa ka sheekeeyay nin ganacsado ah oo milyaneer ah oo dadka ugu lacagta badan dalkiisa ahaa ayaa wuxuu ka sheekeeyay taariikh nololeedkiisii ayuu wariyay ooga warramay wariyaha ayaa wuxuu weydiiyey sida uu u arko farxadda iyo waxyaabihii meelihii uu farxadda ka helay sidaan wada ognahayna maanta adduunku badanaa dadku waxay u socdaan in la helo farxad qof baa farxadda ka raadinaya dhaqaale qof baa farxadda ka raadinaya aqoon iyo waxbarasho qof baa farxadda ka raadinaya inuu u adeego dad danyara dad baa farxadda ka raadinaya waxyaabo kala duwan oo waxyaaba naftu jeceshahay dad baa ka raadinaya farxadda laakiin si guud waxaa la isku raacsan yahay in loo la raadiyo farxad oo qofku intuu nool yahay oo farxad ku noolaado ninkaas ayaa wuxuu yidhi raadinta farxadda waxay soo martay 4 marxaladood iyo 4 meelood oo aan ka raadiyay farxad kadib markaan tabcay lacag aad u badan ta koowaad wuxuu yiri waxaan ka raadiyay in aan gato waxyaabo inaan yeesho gaar ah oo dadka iga soo cadsaalahan inaan xirto dhar qaali ah inaan gato guryo inaan yeesho ganacsiyo in yacni aan yeesho waxyaabo dadku aysan haysanin aan yeesho wuxuu yiri wuxuu dhawaan yeeshay wax farxad ah kuma helin qaybta labaad waxaan isri waa run wax waad leedahay laakiin amaysan ahayn wixii loo baahnaa ee kaa dhigayay qofka faraxsan tusaale ahaan haddii guri lahaa wuxuu gatay 10 guri oo ka qaalisan oo ku yaala meelo ka muhiimsan ama ay degaan dadka gaarka lacagta u leh wuxuu lahaa gaariyo wuxuu gatay gaariyo ka qaalisan kuwii gaariyo ka dambeeya ka qaalisan ka orod badan ka qurux badan waxyaabo badan ayuu ku doortay wuxuu waxaan gadatay dhar laakiin waxaa laga yaabaa inaysan ahayn dharkii munaasabka ku ahaa dee nin dhaqaale leh oo lacag leh oo milyaneer u qalbaysan ahayn waxaan gatay dhar qaali ah wuxuu yidhi weli farxad ma helin waxaan isiri wuu yidhi amay farxaddu ku jirtaa inaad gadato mashaariic inaad yeelato mashaariic waaweyn oo maalgashi inaad yeelato saa darteed waxaan gatay xarumo loo dalxiis tago waxaan gatay jasiirado waxaan gatay magaalooyin waxaan gatay يعني meelo caan ku ah dalxiiska ayaan gatay sidoo kale waxaan gatay kooxo kubadda cagta ciyaara kooxo kubadda kolayga ciyaara waxaan boqolaal wax ayaan gatay oo mashaariic waaweyn ah wuxuu wali farxad ma helin waan yaabi ayuu yiri dib baan isugu laabtay wax kasta oo qof bini aadan ay lacag u goyso waan sameeyay waan gatay wali se farxad ma hayo tolo farxad waxa ka jirtaa wuxuu maalinkii dambe ayaa nin saaxiibkay ah ayaa guriga ugu yimid waan iska sheekaysanay wuxuu yiri niyo caruur agoon ah oo sabool ah oo xarun lagu hayo oo haddana wada curyaan ah ayaa jira wax weyn kugu imaanin waxaan rabaa in caruurtaas xarunta lagu hayo ee agoomada ah haddana curyaamada ah aad u gado kursiga lugaha leh ee taayirada leh ee ilmaha lagu wado inaad u gado wax weyn ma ahayn buu yiri waayo 150 200 ilmood oo loo gadayo kuraas yaryar oo ay ku gurtaan ama ay ku socdaan ama markay sal ku shaqeeyaan ama ay ku fariistaan wax weyn oo dhaqaalahayga ama dhaqaalihiisa ama ganacsigiisa dee wax macno u sameynaya ma ahayn saa darteed ninkii uu lacagtii siiyey wuxuu yiri u gad wuxuu yiri niyahow inaan soo gado waa sax laakiin arrinta aan rabo ayaa waxay tahay in adigu aad meeshii tagtid oo aad gacantaada ku qaybisid waxaan ku yiri warniyo dara ka weyn ayaa intaas yaan leeyahay duruufo ka badan baa igu xeeran ganacsiyo igu xeeran shaqooyin baan leeyahay waxaasna ma aha hadda wax aan anigu u tago oo ama aan geeyo sii qaad meeshii gee u qaybi ninka wuxuu ku adkaystay saaxiibkii ahaa in uu asaga gado oona raaco oo qaybiyo wuxuu yiri waan tegey waan soo gadnay xaruntii ayaan tegey waan qaybiyey marka arkay carruurtii ku fariisteen dhan walba u ordayay ku xagga u socdo ku faraxsan ku qoslaya ku farxad darteed la ilmeynaya ku meel fadhiyo oo ay shoog sidma ku noqotay gaariga oo helay farxadiisa ayaa wuxuu waxaan dareemay farxad aanan weligii dareemin
waxaan ogaaday buu yiri in meelihii aan farxadda ka raadinayay ee lacagaha aan ku bixinayay aysan farxaddu iga jirin haddaan farxadda moodayno dhaqaale haddaan moodayno lacag haddaan moodayno tartankaasoo nolosha aadanaha waxaa soo geliyay raasmaaliyadda iyo reer galbeedka ayaa waxay nolosha aadanaha ay geliyeen mafhuum cusub oosan dhaqaaluhu waa hore lahayn oo ah qofka in uu sameeyo hantida waxaa loo sameynaya in saboolnimo lagaga baxo maya waxaa loo sameynayaa in la adeegsado maya in hanti la sameeyo ayaa ah hadaf ah intay doonto ha ahaato saa doonto isticmaal inta aad nooshahay iyo boqolaal jiro adeed dhashay iyo ha ka badnaato muhiimaddu waa in aad samayso lacag sidaad u samaynaysaa marka waxaad u cuskanaysaa akhlaaq iyo qiyam iyo jiritaan iyo dadnimo iyo naxariis iyo turitaan maya uba waxaynaysid dad dil dad dhac dad boob nuclear xeebahooda qashaqub ka dhig saa doontayeen macdantooda boob muhiimaddu waa inaad adigu lacag yeelato qof kasta aad ka lacag badnaato mafhuumkaas waa mafhuum raasamaaligu ay nolosha ay soo geliyeen ka aradan akhlaaq iyo waxyaabo badan iyo naxariis iyo turid iyo sadaqa iyo zake iyo waxyaabo badan oo diinteena islaamka ee wanaagsan ay nagu boorinayso wuxuu yiri ninkii marka waxaan dareemay farxad aad u weyn waxaan dareemay farxad cajiib ah oo weligay isoo marin ayaan dareemay waxaan garwaaqsaday buu yiri in halkan ay tahay iyo meelaha la midka ah meesha saxda ah ee aan farxadda ka helayo ee ay tahay in hantidu uu ilaahay siiyey aan ku bixiyo shakadu ma intaas ah maya ma aha wuxuu marka aan soo bixi rabay ayaa wiil yar oo carruurtii ka mid ah faraxsaneyd ee gaariyada ku faraxsaneyd ee gaariga korba dhinac u waday ee iyagu isku dhufanayey ee isku qoslayey ee jawiga qurux badan ku jiray mid ka mid ah ayaa wuxuu yiri lugaha ay qabtay lug buusa ay qabsaday حيوان في وحنا سيدا صابت تدعوني قروا عياري أو عيد له إسكت صبوله أو إنك أنت منزله يسلجون واحد بسي عنق إنه لقطة قبصة أو صخايو كده بسي نحريس كجرتا وحنا رجع صلي بينا يسيدا أو لقطة يسيدا أنا صعود وحيرنيهم يصوف فيري عمل ويسفي عمل وفيري وحير وحاربة إنه وجهه سفي عن وأركو وبرتو maskaxda uu kaydiyo si ilaahay hortiisa markaan tago aan u dhaho ilaahayow ninkan wuu naga farxiyey waxbuu noo qabtay wuu na garab istaagay xilli aadanuhuna iloobeen ayuu na xusuustay ilaahayow ha ilaawin ilaahayow u dembi dhaaf ilaahayow jannadiisa si aan ilaahay hortiisa kuugu doodo ayaan rabaa inaan si fiican wejigaaga u fiiriyo si aana u ilaawin allahu akbar naxariista iyo farxadda iyo wanaagu waxay ku jirtaa in dadka kaa itaaliyar kaa hooseeya saboolka ah waxba aan haysanin baahan aad caawiso inaga daa Soomaaliya waxaan dhahnaa qofkii wax haysta wax loogu daraa ma aha qofkaan waxba haysanin ayaa wax la siiyaa hadda waxaa soo dhow ciid ayaa soo dhow waxaa jira boqolaal Soomaali ah oo aan ciidi karin oo sabool ah oo aan haysanin waxay carruurtooda kaga farxiyaan waxaana faran haddaan nahay dadka ilaahay wax siiyey ama wax haysta ama dadka kala dhaama waxaana faran in aan ummadda Soomaaliyeed intooda saboolka ah ee aan waxba haysanin aan garab istaagno haddii aad carruurtaada aad ciidsiin karto waxaa jira boqolaal ilmahoodii aan u awoodin inay ciidsiyaan ka farxi wuxuu ilaahay ku siiyey wax ka sii ku sadaqayso waxaa sadaqadaa helaysaa maalin maanta aad uga baahi badan tahay ogowna farxaddu waxay ku jirtaa marka wixii ilaahay uu ku siiyey wuxuu ilaahay na siiyey waxa aan leenahayn haysanee xoolo ah aan bixino ee aan sadaqaysano ee wejiyada saxda ah aan ku sadaqaysano halna ogow sadaqadu ma nusqaamiso hoos uma rido xoolaha sadaqadu xoolaha way bulaalisaa wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuhu